madaxweynaha maamul goboleedka Khaatuma Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedka Khaatuma ee ku sugan gudaha degmada Taleex ayaa maanta kormeer kala duwan ku kala bixiyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay degmada Taleex isagoona madaxweynuhu socod dheer ku maray wadada halbowlaha ee xidhiidhisa degmadani Taleex kormeerkan madaxweynaha oo ahaa mid ballaaran isla markaasna ugu korgalay xaaladda amniga midda nabadeed ee deegaankani ayaa markii uu soo gabagaboobay kormeerkani waxa uu madaxweynuhu warbaahinta iyo shacabweynaha reer Taleex kula hadlay gudaha degmada Taleex isagoona soo hadal qaaday madaxweyne Karaashi weynaha Khaatuma ee lagu baaqay inuu ka dhaco gudaha degmada Taleex waxaana uu sheegay madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi in mas'uuliyiinta maamulka Khaatuma iyo waxgaradka deegaanka Taleex aysan diidaneen qabsoomida shirkaasi balse maslaxadu ku jirto waa sida uu hadalka u dhigay in shirkaasi ka dhaco degmada Taleex marka ay soo dhamaadaan shirarka turxan bixineed ee beelaha qaarkood u socda xilligani waxa aan idin sheegay halkan saaka maanta kulankeena uu yahay walaahow lagu walaahoobo oo dadka wax magaratada iyo makasta laga dhaadhiciyay oo kuwa lugooyayaal la yiraahdo ama jabiyaal ay dadka u sheegaan Axmed Khaatuma waa ka tagay Puntland buu aaday hadda waxa jooga madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisamed Cali Shire waa gurigiisii madaxweyne Khaatuma u diidi karin shacabka reer Taleex baan u diidi karin anigaan u diidi karin anigu uma diidayo waa gurigiisii waayo maslaxad buu ka wadaa maslaxad baanu heshiis ku nahay dadka ah kuwa doonaya in dadku sidii u kala xidhnaado oo la isku dilo oo ay maxay tahay cadaawad dadka dhexdiisa laba walaalaa ama laba oday kala tirsadaa aanay isu gelin sidii ay ahaan jirtay baa meelaha ka qaylqaylinaya bal iimaan laawayaasha waxa soo ciidana jooga dhowr wiil oo yar oo meesha marmaraya iyo kuwa ay meelaha ka soo dirdareen beelay ma shir qabanaya shir baa furan beelay sidee u furan yahay hadaanan anagu furin oo ninkii gobasha dhigay furin soo maaha meesha in mashaakil ka dhaco ay dabeedna ku qoslaan oo inaan haaweydii baan isku diray macnuhu intaa weeye inaanu maxay tahay waxan ay dumarkan iyo caruurahan iyo waxan ay soo kicinayaan inaanu la aqli noqono oo dabeedna meesha manaasaqa ka dhacdo oo ay halka intay shirka u jifsaayeen waa ka caloolaha cadda iska dhigeen shirna ma qabsoomayo shirku waa dhacaya waanu qorsheynaynaa turxaan bixintaasi markay dhamaato oo beelahan hadda fadhiya sarmaayo ay dhamaystaan oo la isku afkarto baa dhulbaanta oo dhammi reer Khaatuma oo dhammi isugu iman karaan oo mid dibadda laga keenay ma iyagu ay wax abuuri karaan oo hareeraha ka fadhiisan karaan dhinaca kale madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi ayaa sidoo kale ka hadlay mowqifka kaga aadan maamul goboleedka Khaatuma in gacanta maamulka dib loogu soo celiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana uu sheegay madaxweynuhu in ka maamul ahaan ay arintaasi ka go'an tahay isla mar ahaantaana ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo waliba sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu ku dadaalaynaa xoreyn baynu jeednaa inagu xoreyn baa inoo muhiima dalkeenu aynu xoreyno meelahan shirar lagu qabto oo hilib lagu cuno oo dadka lagu warxameero wax badan ma faa'iideynayaan laakiin maanta waxa inaga inoo ballana xoreyn baynu u dhaqaaqaynaa shirkeeniina waxaynu u samaynaynaa waqtigu ku haboon yahay baynu qabanaynaa Cabdiraxmaan Jaamac Xashi Cabdiraxmaan Wadani Somsa TV Taleex